haddaad tiraahdo madhabka shaaficiga iigu fatwood oo hadalka gadaal sida ka muuqata madhabka shaaficigu wuxuu qabaa dhunkasho iska dhaafay hadduu jirkiinu isgaadho inay weysadu ka jabayso iyadana ka jabayso haddaad se istiraahdo masaladu say ku xoog badan tahay ama shaaficiga ama maaliki ama waxa doon tahay masaladu waxay u xoog badan tahay taabasho jir isgaadhay inayna weysada jabinin allahumma inay galma dhacdo mooyee ama xubinka taranka wax ka soo baxaan mooyee waxaana tilmaamayo arrinta xoojinaya masaladu khilaafiya waxa xoojinaya inaysan jabinaynin axaadiis dhowr oo nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam oo kamid ah xadiidkii saxiixa ku yimid nabigu isagoo tukanaya xaaskiisa Caaisha oo meeshu ku sujuuday lugteeda ay taalay iyo markuu soo sujuudo lugta ka taabanayo ka laabaysa way hurdaa guriguna waa cidhiidhi nalla malaha waxaa kaloo iyadana sugan fi sahih muslim nabiga sallallahu alayhi wasallam ya Caaisha waxay leedahay habeen uu garab jiifay kadibna waxay tiri garabkayaan ka waayay meeshu jiifaan ka waayay markaasa waxa ii gashay malaha markuu hurdada kugu hubsaday ayuu aayar kacay oo islaamiyiisi kala aaday markaasaan bilaabay bay tii inaan gacanta ku raadiyo guri waa mugdi asaga oo sujuudsan ayaa gacantayda calaacasheedu waxay ku dhacday lugtiisa nabiguna sallallahu alayhi wasallam marka uu sujuudsay marka bad bay ku jirtaa nabiguna bad kale ku jira laba tog baa la kala hayaa marka waxay tilmaamaysaa marka nabigu weysada kama jabin sallallahu alayhi wasallam waxa inta soo dhan ka baduwanba nabigu isagoo weysa qaba yu xaasaskiisa la seexan jiray marana la huwan jiray adiga ma iswaafajin kartaa inaad weysa qabto islaantiina weysada ka jabinayso iyadoo weysa qabtana aad mara la gasho weysana ku seexato ma iswaafajin kartaa maya marka ahadiistaas xoojinaysa inaysan weysadu jabaynin mas'alada dhunkashada gooni ahaanteeda waxa ku soo arooray xadiid Ahmed iyo ay wariyeen Abu Daawud iyo Tirmidhi qeyrkood Aisha laga warinaya Urwa ibn Zubayr baa ka warinaya wuxuu leeyahay Aisha waxay tiri qabbala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'd nisaa'ihi nabigu wuxuu dhunkaday dumarkiisa qaar kamida ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ markuu dumarkiisa dhunkadayna salaadu u baxay mana weysiisanin bayt Urwa oo ah bareer ay u tahay oo xadiidka ka warinay ayaa wuxuu ku yiri marka oo habaryar adiga mooyee yaa kale ruuxaasi buu ku yiri ma cid kala yaani cidda uu nabigu dhunkaday ee baxay soo adiga uun ma aha buu ku yiri kadibna way qososhay marka xadiidkaas ala sahih waa xadiid sahih culimada cilada u sheegayna ciladay sheegeen cilad sax maaha xadiidku waa sugan yahay sidaas daraadeed dhunkasho taabasho hadayna galma gaadhin ama xubinka wax ka soo bixin waxa xoog badan jidhka isgaadhay inuusan weysada jabinin ama xaaskaaga ha noqoto ama naag ajnabi ha noqoto laakiin madaahibtu way ku kala duwan yihiin madhabka shaaficigu waa saasoo horay baan u sheegnay yaa qaba inaysan sinaba weysada u jabinayn culimo badan baa qabto madhabka waxa kamid ah Xanafiga Xanabiladu waxay leeyihiin hadaa shahwo u taabatay hadaadan u taaban bay kala qaadayaan marka masaladu mas'ala khilaafiya laakiin sida xoog badan waa sidaan tilmaanay daliil ahaan marka la fiiriyo way wallahu a'lam ma ku dhibanayd fahamka ereyo badan oo luqadda Ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hor taagan tahay macmiil si aad taasi u xalliso adeega aqoon maal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba lagu sharaxayo bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luqadda Ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 150